السلام عليكم. عن عشركين لبعض physics كعشركين هوري ما صوص على physics relation with the other fields and chemical engineering. قيبتنا كلنا وحويان chemical engineering. Chemical engineering with engineer ككيمي كذا هي design قرية ماشي كيمي كذا لقى سمينه and وحويان involves the production of products through the chemical process. ويض وحصار كلا صار يوح ورشدها يضو la marinayo nidaam kimikaaleed ayaaba waxaan u baahnay marka knowledge of physics and temperature-ka iyo thermodynamics-ka meesha chemical-ka laga sameynaya in ayna sameyn activation of the energy si ayna haddii uu kulka ka bato heerkii loogu talagalsanaa tamar chemical-daas waxay isu bedeli kartaa nooc kale ama wixii loo baahnaa waxaan ahayn baa soo baxaya. Therefore the chemical engineering and the physics there are must be interrelated. And technology engineering neophysics and generating technology generating and so abuurista teknolojiyada maanta aan arkayno iyo neophysics cilmiga physics cusub. There is a fundamental connection waxa jira isku xid asaasi ah between physics and technology. Teknolojiyada farsamada casriga ah iyo physics waxay leeyihiin xiriir hoose oo u gaar ah oo asaasi ah. Without knowledge of physics iyadoon aqoonta physics-ka lahayna we can't generate a new technology. farsamada cusub ee maanta aan isticmaalana most of the technologies we know well today could not be available for the society. waxyaabaha cusub ee maanta nolosheena ama mobile-ka ha ahaato ama TV-ga ha ahaato ama tabinta wararkaba ha ahaatee it is a knowledge of physics bay u baahan tahay waxaas oo dhani. Medical physics daawooyinka iyo physics-ka medical physics